بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa shanta bisha Juulaay sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxa kamid ah waa maxay waxyaabaha uu la yaabay madaxweyne Trump ee uu ku arkay aaska Ayatollah Ali Khamenei sababta uu kaga baaqsaday inuu beegsado hogaanka ugu sareeya dawladda Iran oo uu shaaciyay waxaa raaci doona wada hadalka in ka badan halka saac qaatay ee dhexmaray madaxweyne Putin iyo sidoo kale Donald Trump maxay ka wada hadleen wararkii ugu dambeeyay guud ahaan dhanka gobolka Masar oo sheegtay in dadka carqalada ku ah nabadgelyada gobolka bariga dhexe Israa'iil ay tahay dowlatuska military ee Shiinaha iyo Ruushka ay mar kale ay sameyn doonaan Mali iyo wararkii ugu dambeeyay qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracada show barnaamijka falanqaynta caalamka ma soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa wararka ugu waaweyn waqti xaadirkan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un wuxuu maanta goobjoog uu ka noqday tijaabada gantaalo iyo hub casri ah oo dawladdiisa ay soo saartay gaar ahaan gantaalada lagu xoojinayo awoodda difaaca ee dawladda Kuuriyada Waqooyi waxa goobjoog uu ka ahaa tijaabada gantaalo lagu rakibay markabka cusub ee dagaalka ee dawladda Kuuriyada Waqooyi ee soo saartay ee Kangkong la yiraahdo sidoo kalena waxa uu sheegay gantaalo cruise kuwa istiraatiiji ah iyo kuwa kale dawladdiisa inay soo saari doonto dhanka iyo Israel markaan eegno wasiirka arrimaha gudaha ee Israel Itamar Ben-Gvir ayaa lagu waramaya inuu ka baaqsaday socdaal uu ku tagi lahaa gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York kadib markii uu ka cabsaday in la xiro iyadoo olole isaga ka dhan ah iyo dacwado iyo kiisas kaleba ay ka socdeen gudaha dalka Mareykanka dadka xuquuqda iyo u ololeeya ayaa waxay ku eedeynayaan xadgudubyadii magaalada Gaza iyo xadgudubyo kale sida daraadid wuxuu ka baqay in la xiro waxaana lagu waramaya gabi ahaanba inuu ka baaqsaday socdaal uu ku tagi lahaa magaalada New York halkaas oo shir caalami uu doonaya inuu kaga qayb galo marka la eego wadamada kale ee dunida iyo wararka ugu waaweyn xanuunka Ebola ayaa lagu waramaya kiiskii ugu horeeyay gudaha dalka Faransiiska in lagu arkay waxaana la dhigay isbitaal ruuxa kiiskaasi lagu arkay dawladda Spain iyo Talyaanigana waxa ay u direen shaqaale dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega gudaha dalka Portugiiska halkaas oo kaymo sida la sheegay dab xoogan oo ka kacay Ukraine waxa lagu waramaya inay duqeymo ay ka fulisay xarumo kala duwan oo wax soo saar iyo xarumo shidaal oo ku yaala gudaha dalka Ruushka muddo 40 maalin ay dawladda Ukraine qabsatay in ay duqeyn lala cajabo ay ka fulin doonto gudaha dalka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin booqasho aan hore loo sii shaacin ayuu ku tagay sida dawladda Ruushka iyo warbaahintaba ay baahiyeen xarumaha iyo furmaha dagaalka inkastoo goobta uu si rasmi ah u tagay aan loo sheegin laakiin socdaal kadis ayuu ahaa oo ciidamada oo kula kulmay arrimahaas ayaa waqti xaadirkan ugu waaweyn caalamka waxyaabaha ka soo kordhana waan kula wadaagaya insha Allah markaan aan eegno warbixinada ugu waaweyn iyo falanqayntooda madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa kadib markii waraysi uu siiyay warbaahinta dalka Mareykanka waxa uu kaga hadlay waxyaabihii ka yaabiyay ee uu ku arkay munaasabada aaska Ayatollah Ali Khamenei oo ka dhacaysa magaalada Tehran ee dalka Iran watan koowaad waxa uu yiri waan la cajibay kumanaanka malaayiinta ruux ee ka qayb galaysa munaasabada aaska ee reer Iran waxaan aaminsanahay buu yiri in mar horeba ay naceen hogaamiyahooda laakiin halkaas waxa ka muuqanaysa inaanay nacin oo wili ay jecel yihiin hogaamiyahoodii xitaa hadii lagu dilay dagaalkii dhacay 28 bishii February waxa intaas oo ku sii daray marka in malaayiinta halkaas joogta ay ilmeynayeen taasoo isaga ka yaabisay wuxuu leeyahay war ilintan ay ilmeynayaan ma dhabba mise waa iska xogaa jilin ay sameynayaan ay ila muuqataa buu yiri hogaamiyaha ama madaxweynaha dalkaasi Mareykanka maanta dawladda Iran marka hadalkaasi tara markii uu jeeday kadib waxay sheegeen 9 milyan oo ruux inay gaartay tirada dadka aaska ka qayb galaya ilaa magaalooyin Karbala oo Ciraaq iyo magaalooyin kale oo dalka Ciraaq ka tirsana in munaasabada aaska ay ka dhici doonto madaxweyne Trump wuxuu dhinaca kale sheegay in ay awood u lahaayeen inay beegsadaan hogaanka ugu sareeya dawladda Iran oo karayeen ama ay awoodeen laakiin ay joojiyeen hal sabab daraadeed wuxuu yiri waxaan ka baqanay hadii aan beegsano hogaanka ugu sareeya dawladda Iran inaan weyno cid aan la wada hadalno hadii aad xasuusataan shalay dawladda Iran waxay si cad u sheegtay hogaamiyahooda Ayatollah Mujtaba Khamenei inuusan ka qayb gali doonin munaasabada aaska sabab dhanka amniga la xiriirta
marka ma waxaa la qorsheynayay haddii isaga uu soo muuqdo in la beegsado inkastoo warbaahinada qaar ay lahaayeen dhaawac darteed ayuu kaga maqnaa warbaahinta qaarna ay baahisay xitaa dhaawaca hadda soo gaaray inuu ka yara bogsaday munaasabada aaskan uu ka qaybgeli kara laakiin sirdoonka dowladda Iiraan ay yiraahdeen suuragal ma ahan inaad munaasabadan ka qayb gashid maxaa yeelay waa lagu beegsanayaa waana lagu baadigoobayaa madaxweyne Trump marka hadii aan u soo laabano wuxuu yiri war dadka reer Iiraan ma dhamaantood ayaa soo baxay munaasabada aaska marka la eego maxaa yeelay halkaas ay joogeen hal xabad oo kaliya ayaan ku baabi'in karayna buu yiri dhamaan hogaanka ugu sareeya dowladda Iiraan laakiin taasi ma sameynayno mana aanan sameeyno sababtuna waxay tahay cid dambe oo aan la xaajoono ayaan weyn lahayn sidaas ayaan iskaga dhaafnay buu yiri markii inaan beegsano hogaanka ugu sareeya dowladda Iiraan maadaama munaasabada aaska ay joogeen hadii la beegsan lahaa kaliya Iiraaniyiinta iyo madaxdooda kuma aysan geeriyoonin halka maxaa yeelay madax kale oo 90 dowladood oo caalamka ka socotay ayaa ku sugnaa munaasabada aaska marka ma kula tahay sababta madaxweyne Trump uu sheegayo inay kaga baaqsadeen inay beegsadaan hogaanka mise waxyaabo kale ayaa jira ayaad isleedahay aragtidaadana la wadaag dhinaca kale madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweyne Trump ayaa telefoonka ku wada hadlay saacadii ugu dheereed tan iyo markii madaxweyne Trump uu dib ugu soo laabtay talada dalka Mareykanka bishii January sanadkii 2025 wada hadal telefoon oo socday in ka badan 85 daqiiqo ama hal saac iyo 25 daqiiqo ayaa dhex maray madaxweyne Putin iyo sidoo kale madaxweyne Trump lama sheegin waxyaabo ay ka wada hadleen maadaama xalay wada hadalkaani uu dhacay waana wada hadalkii 14 sida la sheegay oo dhexmara Trump iyo madaxweyne Vladimir Putin arrimaha Ukraine Iran gobolka bariga dhexe استراتيجية مريكانكا روشكا وحيابا اسكو فاهمي لايين arrimaha soo idil ayaa suuragal ah in laga wada hadlay laakiin warbaahinta ilaa imika macluumaad ma aysan helin banaankana lama soo dhigan sida rasmiga ah waxyaabihii looga wada hadlay laakiin marnaba kama maqnaan karayaan faylasha Ukraine ama dagaalka Ukraine ka soconaya oo Ruushka uu aaminsan yahay in Mareykanka uu yahay wax dagaalka sii wadaya maadaama dawladda Ukraine awoodeedii hoos u dhac weyn uu ku yimid dawladaha qaaradda Yurub dhankooda walaa xogan ayay muujinayaan wakaaladda wararka ee taas waxay sheegtay in wicitaankii ugu horeeyay ee telefoon uu dhacay 15 bishii June ama 14 bishii June xilligaas ay ku beegneed dhalashadii 8aad ee madaxweyne Trump wicitaankan kalena waxa la yiri wuxuu ahaa codsi dhanka Trump ka yimid maadaama sanad guuradii 250aad ay ku beegneed ee madax banaanida dalka Mareykanka wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa iyo faahfaahinta wada hadalkooda iyo xog kasta oo banaanka timaada insha Allah aragtidaadana la wadaag like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay madaxweynaha dowladda Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa waxa uu si cad u sheegay in xaaladda nabadgelyo darrada ee ka jirta gobolka bariga dhexe lagu soo afjari karayo in Israa'iil gabi ahaanba dhulka Falastiiniyiinta ay ka baxdo waxa sidoo kale uu sheegay in xal kale oo dhab ah inuusan jirin marka la eego xasiloonida isagoo soo hadal qaaday xiriirka caadiyiinta Israa'iil iyo arrimo kaleba kadib markii khudbad uu ka jeediyay munaasabada furitaanka xarunta taliska ee istiraatiijiga ee ciidamada dowladda Masar ayaa Cabdifataax al-Siisi wuxuu sheegay dowladda Masar waaye aragnimo dheer inay u leedahay gobolka bariga dhexe iyo waxa ka soconaya isla markaana ay ahaayeen dalkii ugu horeeyay oo xiriir diblomaasiyadeed la sameeya dhanka iyo Israa'iil wuxuu sheegay inay aaminsan yihiin in colaadaha bariga dhexe kaliya xalka uu noqonayo heshiis nabadeed oo dhameystiran oo cadaalad ku dhisan oo dadka shacabka ah ay wada helaan heshiiskan wuxuu ku saleysnaanayaa buu yiri in la soo afjaro qadiyadda Falastiin in la dhiso dawlad Falastiiniyiinta ay leeyihiin oo waliba madax bannaan caasimadeedana ay tahay Qudusta bari iyo sidoo kale in la raaco go'aanada sharciga ah ee caalamiga wuxuu yiri ma jiri doonto nabad waarta xasilooni dhab ah ama caadiyeyn dadku ay aqbalaan ilaa la helo nabad cadaalad ah oo soo afjarta gumaysiga joojisa dulmiga iyo gardarrada isla markaana xuquuqda shacabka Falastiiniyiinta dib u soo celisa intaas marka la helo ayaa gobolka bariga dhexe nabad uu noqonayaa buu yiri inta aan intaas lahaynina wuxuu yiri suuragal ma ahan gobolka bariga dhexe nabad inay ka dhalato wuxuu soo hadal qaaday heshiisyadii ugu dambeeyay arrinta magaalada Gaza iyo heshiiskii dawladda Iran lala galay waxaana uu yiri waxa muhiim ah in la hubiyo dhaqangelinta heshiisyadaasi oo Israa'iil iyo Mareykanka ay saxiixeen khudbadda munaasabada lagu furay xarunta istiraatiijiga waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa'iil ay ilgaar ahaaneed ay ku hayso dhaqdhaqaaqyada iyo isbedelka dhanka ciidanka ee dawladda Masar oo aan barnaamijyo kala duwan idin kula wadaagnay in masaarida isbedel weyn oo dhanka hubka iyo ciidankaba ay sameynayaan si ugu yaraan awoodoodii ay sare ugu soo qaadaan waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa dhinaca kale wargeyska iyo dacwad Axranof ayaa banaanka keenay macluumaadka ku saabsan khilaaf weyn oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Netanyahu iyo sidoo kale hay'adaha sirdoonka ee Israa'iil
wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday xarumaha nuclearka ee dowladda Iran horaantii bishii Juun ee sanadkii 2025. wargeysku wuxuu sheegay in xafiiska Netanyahu cadaadis weyn uu saaray saraakiisha ciidanka, sirdoonka iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee Israa'iil si ay u soo saaraan qiimeyn rasmi ah oo cadeynaysa in gebi ahaan la burburiyo barnaamijka nuclearka ee dowladda Iran. ujeedadan waxay ahayd in la taageero hadallada madaxweyne Donald Trump oo markaasi sheegay xaruntii nuclearka ee Iran ee Isfahan iyo xarumo kaleba in si buuxda loo baabi'iyay. waana fadeexada Israa'iiliyiinta hadda dhexda ay ka joogaan marka la eego marxalado kala duwan dagaalkii dowladda Iran lala galay. warbixintu waxa intaas ay ku daraysaa marka in 25 Juun 2025 saacado yar kadib markii uu dhamaaday dagaalkii 12 maalmood socday in gudaha xafiiska mid ka mid ah madaxda sare ee sirdoonka Israa'iil uu ka dhacay khilaaf iyo muran aad u xoogan kaas oo banaanka imaanay isna soo tarayay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo la maqlay qaylada iyo dooda adag ee ku saabsan warbixinta la doonaya markaas in la saxiixo oo ah in warbaahinta lala wadaago xarumihii nuclearka ee Iran gabi ahaan in la baabi'iyay. intii u dhaxaysay marka 13 ilaa 24 bishii Juun Israa'iil oo taageero ka helaysa Mareykanka ayaa weeraro waxay ka fulisay xarumo militari oo ku yaala gudaha dalka Iran. toddobaadkii labaad ee dagaalkaasi Mareykanka ayaa si toos ah u weeraray xarumaha nuclearka Natanz, Fordow iyo sidoo kale Isfahan kadib dadaalo dhexdhexaadin caalami ah oo dowladda Qatar Hormuud ay ka ahayd oo heshiis xabad joojin lagu gaaray 24 bishii Juun 2025. markii dagaalku idlaaday marka Trump iyo Netanyahu ayaa si cad u sheegay in guul taariikhi ah ay gaareen waxaana xarumaha kobcinta uraniumta ay sheegeen gabi ahaan in la burburiyo halka Netanyahu uu sheegay in qatartii barnaamijka nuclearka iyo gantaalada ridada dheer ee dowladda Iran meesha laga saaray sanado badan. laakiin sida uu iyo dacwad axranada uu baahinaya qiimeynta sirdoon ee Israa'iil in arrintaasi ma aysan waafaqsanayn oo sirdoonku wuxuu ku soo gabagabeeyay in qasaaraha Iran soo gaaray aad inuu u weynaa balse aan la oran kareynin barnaamijka nuclearka ayaa gabi ahaanba meesha ka baxay. aqalkaada ee dalka Mareykanka ayaa markaasi doonayay qiimeyn ka timaada dhinaca Israa'iil oo taageerta sheegashadiisa maadaama Trump uu si cad u sheegay in xarumahaasi gabi ahaanba la baabi'iyay. fadeexadaasi ilaa iminka ay Israa'iiliyiinta dhexda ka taagan yihiin wax walba oo ka soo kordhana waan kula wadaagi doonaa insha Allah. markan Shiinaha iyo Ruushka labada dowladood ee Ruushka iyo Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in bishan ay qaban doonaan mar kale tababar dhanka badda ah iyo dowlatus military kaas oo sida la sheegay ka dhacaya biyaha iyo dhanka hawada magaalada lagu magacaabo Qingdao oo dalka Shiinaha ka tirsan. wasaaradda difaaca ee dowladda Shiinaha ma aysan sheegin taariikhda rasmiga ah ee dowlatuskaasi military uu dhacayo. magaalada Qingdao miyaa la yiraahdaa dadka Shiinaha jooga ayaan u daynaynaa dhawaaqa magaca maadaama dadka Shiinayska ay dhawaaqooda uu aad u adag yahay. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha sidoo kale waxay sheegtay in marka dowlatuskaasi uu soo dhamaado qayb ka mid ah ciidamada badda ee labada dal in ay u dhaqaaqi doonaan meel ka mid ah badweynta Pacifiga halkaas oo laga fulin doono dowlatus iyo roondo badeed oo wada jir ah. sida Shiinaha uu sheegay marka dowlatusyadan waxa la qabtaa sanad kasta ujeedaduna waxay tahay in labada dal si wada jir ay kaga hortagaan caqabadaha dhanka amniga isla markaana gacan ay ka geystaan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. toddobaad ka hor wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee Shiinaha iyo Ruushka ay fuliyeen dowlatus wada jir ah oo dhanka hawada taas oo ka dhacday badda Japan, badda dhanka bari ee Shiinaha iyo galbeedka badweynta Pacifiga. labada dal ayaa sheegay in howlgalkaasi uu u muuqanayo inuu yahay muujinta awoodda iyo sida ay uga go'an tahay ilaalinta nabadda iyo xasiloonida gobolka inkastoo Mareykanka arrintaas uusan arkaynin. dhanka kale dalalka reer galbeedka iyo xulafadooda muddo dheer waxay walaac ka muujinayaan iskaashiga military ee sii xoogaysanaya ee u dhaxeeya labada dowladood ee Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha. saraakiisha qaaradda Yurub ayaa waxa ay sheegeen in ka qaybgalka saraakiisha ciidanka ee heerkaani ah inay ka dhigan tahay in dagaalka Ukraine ciidan badan loo tababarayo sidoo kalena la doonayo in loo sii tababarto sidii looga adkaan lahaa Mareykanka iyo xulafadiisa. guud ahaan falanqayntii qaybtan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa falanqaynta lamid intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida in nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sida kanaalka 12aad ee Israa'iil uu baahiyay qiimeyn ay sameeyeen saraakiil sare oo ka tirsan Israa'iil ayaa muujinaysa in dagaalka magaalada Gaza laga yaabo in dib loogu laabto 2 ilaa 3 bilood gudahood ka hor doorashooyinka baarlamaaniga ee ka dhacaya gudaha Israa'iil oo la qorsheynayo inay dhacaan bisha Oktoobar ee sanadkan. sida warbixintu ay sheegtay Israa'iil waxay qorsheynaysaa inay ku doodo in xoogagga iska cabinta ee Xamaas ay jibiyeen heshiiska xabad joojinta maadaama weli ay haysato hubkii la doonaya in laga dhigo inkastoo Israa'iil dhankeeda ay sii wado jibinta heshiiska xabad joojinta. bisha Oktoobar haddii la gaaro waxay ka dhigan